madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu ka qayb galo shir madaxeed heer caalami ah oo u dhexeeya dalalka Afrika iyo Faransiiska kaas oo lagu qabanayo magaalada Nairobi inta u dhaxaysa 10 ilaa 12 bisha May 2026. Shirkan muhiimka ah ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco xarumo waaweyn oo ku yaala Nairobi kuwaas oo ay ka mid yihiin University of Nairobi iyo Kenyatta International Conference Center halkaas oo la filayo in ay iskugu yimaadaan madax dawladeed diblomaasiyiin ganacsato iyo wakiilo ka kala socda dalal badan oo Afrika iyo Yurub ah. Maalmihii la soo dhaafay waxaa dalka Kenya ka socday kulamo hordhac ah iyo diyaar garow la xiriira furitaanka shirka iyadoo ammaanka magaalada Nairobi si weyn loo adkeeyay si loo xaqiijiyo badqabka madaxda iyo ergooyinka ka qaybgalaya kulanka. Ajandaha shirka ayaa diiradda lagu saari doonaa xoojinta xiriirka iskaashiga u dhexeeya Afrika iyo Faransiiska gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, maalgashiga, ganacsiga, amniga iyo siyaasadda. Waxaa sidoo kale si gaar ah looga hadli doonaa sidii loo horumarin lahaa ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha dalalka Afrika loona abuuri lahaa fursado shaqo oo cusub oo ay ka faa'iideystaan dhalinyarada qaaradda. Dhanka kale, shirka ayaa muhiimad gaar ah u leh Soomaaliya maadaama madaxweynaha Soomaaliya uu fursad u heli doono kulamo gaar ah oo la yeesho madaxda kale ee ka qaybgalaysa shirka si uu ugula hadlo arrimaha mudnaanta u leh dalka. Qodobada la filayo inuu xoogga saaro waxaa ka mid ah xoojinta ammaanka, la dagaalanka argagixisada, dib u dhiska hay'adaha dowladda, taageerida caalamiga ah iyo sidii Soomaaliya looga soo jiidi lahaa maalgashiyo mashaariic horumarineed oo cusub.